wafdiga wasiirka hogaaminaya maanta anagoo kormeer ku maraynay kulliyadii tababarka macallimiinta oo habsami socodkeeda iyo nidaamkeeda la eegayay. waxaan runtii maanta halkan jecel inaan fariin ka farno dugsiyada dalka oo dhan maadaama waxbarashadii bilaabantay waxbarashaduna tahay heerar kala duwan. ardayga ujeedada imtixaanka laga qaadayo waa laba ujeedo. mid waxa weeye ardayga in la qiimeeyo wixii uu soo bartay, midna in la siiyo caddayn sheegaysa wixii uu soo bartay. ardaygu markuu ka gudbayo marxaladda tusaale ahaan hoose dhexe primary-ga fasalka 8aad xafiiska imtixaanaadku shahaado siiya. shahaadaas waxay caddayn u tahay ardaygaasi inuu dhammaystay fasalkii 8aad oo xaq u leeyahay ardaygaasi inuu hadduu fursaddii helo inuu fadhiisto fasalka 1aad ee dugsiga sare. waxaana soo gaadhay warar sheegaya markaa in dugsiyada qaar ardaygii oona shahaadiisii caddayntiisii original aanay gacanta ku dhigin in ardaygay diiwaan gelinayaan fadhiisinayaan. arrintaas runtii waa arrin khalad ku ah xagga waxbarashada. waxaa kala baxaya tiimamkii kormeerayaasha ee wasaaradda waxbarashada. iskuul kasta waa la tegayaa, jaamacad kasta waa la tegayaa. iskuulka loogu tago isagoo fadhiya arday aan shahaadadii originalka haysan, tallaabada waxaa laga qaadayaa maamulka iskuulkaas. waa iyagaa khalday dee nidaamkii. arday kasta oo fasalkaa diiwaan gelinaysa waa inaad shahaadadii weydiiso. waalidiintii ardaydana waxaan u sheegaynaa shahaadadu waxay diyaar ku tahay xafiiska imtixaanaadka inaad ka doonataan, soo qaadataan. markaa fariintaasaan ka dareynaa. ardayda dugsiga dhexe dhammaysatay shahaadadahoogii waa la hayaa. kuwaasna waxay noqonayaan maamulo walba ardaydii aad soo gudbisay ee sabanadaada ahaa weeyi kuwa laga hadlaya eedu gudbay, maaha arday 5 iyo arday 6 midna. marka waxa weeye si loo kala cadaadaan ardayda xaqa u leh fasalka 1aad fadhiistaan. annagu ka xafiis imtixaan bay shahaadadii naga diyaar yihiin oo cid oran karta shahaadadii baan diyaar ahayn iyo shahaadadii baa la waayay. awl waxa lagu marmarsiyoon jiray shahaadadii baan diyaar ahayn waanu sii fadhiisnay. shahaadadii waa diyaar, magaca la ii bedela meedan maanta taagan. magaca ii bedeladaasina waxa weeye markaa hore arday kale ku galaya hebel magaciisa ama hebelo iskaga tagay dalka oo dhoofay ama wax kale u weecday ayaa magaciisa qof iska qaadanaya maamulo. haddaynu markaa daacadnimo iyo xaqiiq ka shaqaynayno ardaygan foomka fadhiisinaysa dee sawirkiisii hay sawirkiina wuxuu ku yaalaa shahaadada aad qaadanaysa. waana nidaam aynu ku hagaajisanayno maadaama aynu ID card ardaydii u samaynay, maadaama aynu bootintii la dagaalamay, maadaama aynu soo sugnay in badan inayna ardayna arday boodin. maamule shahaadadaha u soo dalab ardayda oo kaalay adigu xafiiska imtixaanaadka. jaamacaduna waa la mid. iminka maanta mushkiladeedu waxay haysatay arday jaamacad iska galay soo dhammaystay, kolkuu tegey meel kaloo dibadda baa la yidhi keen shahaadada dugsiga sare. shahaadada dugsiga sarena lama soo marin, tasdiiqinteedu kuma oolin. lugoodaasoo dhanna waxa u sababa jaamacadda waxaan ka codsanaynaa in marka arday aan ardayda Soomaaliland ahayn idii yimaado shahaadadii la yimaado min fadlakum xafiiska imtixaanaadka dib ugu soo celiya si loo qiimeeyo inay igu filan u tahay shahaadada dugsiga sare caadiga ah. maanta waxaynu soo booqanay oo aynu shir ku galnay kulliyadda waxbarashada wasaaradda waxbarashada oo ah meesha macallimiinta lagu tababaray ay ka soo baxaan. waxa oo horumarinta iyo qorshihii sanadaha soo socda lagu socon lahayd kulliyadda aynu maanta ka wada hadlaynay wasaaradda iyo hay'adihii hawsha ay nagala shaqeynayeen. waxa kale oo aynu soo booqanay halkan aad arkayso waa dhul 2 balooga oo kulliyadda la siiyey. marka hore ilaahay baa mahadle. mar labaadka waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo maayarka iyo maayar ku-xigeenkii dawladda hoose ee Hargeysa in ay dhulka 2 balooga ay siiyeen kulliyadda oo runtii aad loogu baahayo imika laga bilaabayo dhismihii hoygii ay ardaydu geli lahaayeen iyo laboratory-gii tijaabada sayniska, garoon lagu ciyaaro. intaasoo dhan u qaadaya tababarka ay kulliyadani bixisaa iyo kulliyadaha kale ay bixiyaanba macallimadu wuxuu qayb ka noqonayaa liisanka macallimada. waxa weeye liisanka macallimada 4 shuruudood baa lagu xidhay. aqoon inuu u leeyahay waxa uu dhigayo, tababar macallimo inuu haysto. marka kulliyadda waxbarashada ka soo baxay waa la soo tababaray. haddii kale uu aqoon kale leeyahayna la tababaro. labada shuruudood kale waxay ahaayeen inaanu dambi gelin iyo inaanu xanuunada la kala qaado qabin. meelaha lagaga baxay dugsi dhexe dugsi sare lahayn waxa halkan looga sheegayaa in macallimiintina loo soo dirayo 7 soo socda ardaydii, laakiin waa inay diiwaan geliyaan. ERO-ga ama gudoomiyaha gobolkii gudoomiyaha degmaduna wasaaradda weyne kala soo xiriiraan meel kasta oo loo diiwaan geliyay arday dugsi sare ah
oo aan hore loogu diiwaangelin jirin wasaaradda u diraysa dugsi sare oo form 1 inaanu geli karin arday aan shahaadadiisii dugsi dhexe haysan waayo horta imika waxaynu ku fiicanay diiwaangelintii baynu haysanaa dugsi kasta liiskii bay hayaan laakiin dee hadduu ardaygu dugsi kale ka yimaado ma garanayo magaca hadduu sheegto inuu isaga yahay iyo kale shahaadadaasina waa waajib inay dugsiga taallo jaamacadaha ma geli karo arday aan soo qaadan shahaadadii dugsiga sare